qaar ka mid ah ismada ka soo jeeda maamulka Puntland gaar ahaan deegaanada gobolka Sanaag iyo galbeedka Bari oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay wada hadallo la sheegay inuu garwadeen ka yahay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Major Kitin kaas oo u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland shirka oo lagu qaban doono dalka Djibouti sida ay sheegeen odayaasha ayaa sheegay in xilligan wada hadal aan loo joogin iyadoo ay jiraan dagaalo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland waxayna sheegeen in loo baahan yahay in marka hore xal laga gaaro dagaaladaasi sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa waxay baaq u direen beesha caalamka iyo qaramada midoobay waa kan garad Cabdullaahi Cali Xuseen afayeenka ismada Puntland iyo Islaan Xuseen Xaaji Cabdisalaan oo kamid ah ismada Puntland oo ka hadlay arintaasi waxa la yiri dalkiina aad leedihiin waa la isku haystaa oo tolow ma shay dhar aba ma ceesaanba aan sumad lahayn miya I don't know wax kastaba ha dhaceene muddada aanu halkaa joognay 27 sanadood duulaan baa laga soo waday Hargeysa anwaac badan waanu dul qaadanaynay dulqaadkaygii maanta aanu dul qaadanay inta aan bina aadam dul qaadan karin aanu dul qaadanay waxay dhashay dhulkaygii inta la yiraahdo waa la isku haystaa waa laga wada hadlayaa Djibouti baa la marinayaa Switzerland baa la geynayaa dushayada lagu socday la mariyay oo annagu oo inta bina aadam leeyahay leh ismaanu leenahay aqoonyahan baanu leenahay guurti baanu leenahay bad iyo beri iyo buur tilmaantooda sida dalkaasi yahay meel Soomaaliya leh aan jirin ayaan deganahay dushayada inta lagu socdo Djibouti baa lagu faqayaa iyo Switzerland baa halka lagu sameynayaa iyo halkana keer iyo waxaan mudnayn waaye waxaan mudnayn ninkii nagula ka cidii nagula kacdo oo hadda tan la wada ah yeeli mayno weeye ugu horeyn Michael Keating United Nations kan ka dacweynayna dawladda Ingiriiska way ku fashilantay si cad waa sheegaysaa warkaygaas Somaliland inaanay dhulka iyaga yaani xoog iyadu ku qabsan karin annaguna aanan kamid ahayn intaas waa war cad weeyaan ciidamadan iyo duulaankan iyo waxana inay ka waantoobaan oo naga daayaan baan leenahay dulqaadku intaanu naga dhamaan Ahmed Sulaiman on Cable TV Muqdisho